waa barnaamijkii sideedaad ee barnaamijyada aanu kaga hadalno taariikhda Soomaalida. waxaanu kaga bilaabaynaa doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyadda Soomaalida sanadkii 1969 waxa aqlabiyadii ku guuleystay xisbigii waqtigaasi talada wadanka hayay ee la oran jiray Israel, inkastoo axsaab tiradoodu ay ka badnayd 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkaasi. hase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ee ku guuleystay doorashooyinkaasi ee ka tirsanaa axsaabtii mucaaradku dhammaantood waxa markii dambe ay isku shubeen amaba ay ku biireen xisbigii talada hayay ee Israel marka laga reebo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen. waxa taas markaasi ay u muuqatay in jamhuuriyadda Soomaalidu markii ugu horeysay ay yeelatay xisbi kaliya. hase yeeshee dawladdaasi muddo dheer ma jirin. madaxweynihii dawladdaasi Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa bishii Oktoobar 15 sanadkii 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobollo waqooyiga ku yaal oo abaari ay ka taagnayd. madaxweynaha waxa dilay nin ka mid ahaa askartii booliiska ee ilaalinaysay. ra'iisul wasaarihii dalka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii madaxweynaha la dilay wadanka dabadda ayuu kaga maqnaa. waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi. kulankaasi Mr Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu ka hadlay bishii Oktoobar 7 sanadkii 1969 oo 2 toddobaad ay ka horeysay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen. hadalkii maalintaasi Mr Cigaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa ka mid ahaa waxyaabihii uu u doodayay xuquuqda Falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay. wadankaas oo sida aad imika ka warqabtaan ka mid ah wadamada awoodda fiitooda ah ee diidmada qayaxan la yiraahdo kulla qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka. bal qadar aanu idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno. waxa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a ah in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado. waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aanu taageeri doonno sidii aanu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay'adaha kaleba. haddaba Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal markii lagu wargeliyay in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu hawlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto Allah u naxariistay Xaaji Muuse Boqor. arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxa kulankii ugu dambeeyay la isku afkartay in Xaaji Muuse Boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii Oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto. gododada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golatoorade sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed wixii u geeyey gabadhyay baliisheeg wixii u geeyey gabadhyay baliisheeg
habeennimadii 21 Oktoobar sannadkii 1969 ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxaa ka mid ahaa Cismaan Jeelle. Cismaan waxa uu imika joogaa waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. aadan nuux dhuule ayaa waxa uu weydiiyey waxa berigaasi ku kalifay in dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya ee la soo doortay ay afgambiyaan iyo muddada ay wadeen bal haddaynay tallaabadaasi qaadaan. buuxu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyey maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xorriyadda iyagoo arkaya dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonnimada loo dhaliyey. marka iyadoo arrintu sidaa ahayd ayaa haddana kalsooni darradii waxa ay sii fogaatay kadib markii dalka uu ka dhacay bishii Maars 1969 doorasho sidii loo maamulay ay reebtay urkutaallo weyn oo ummadda ku qancisay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamulada. haddaba ciidamadu ayagoo qayb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen kuwa arrimuhu sida ay u socdaan indhaha ku haya dareenkoodani waxa kusii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo. arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waqtigaas Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah. marka sidaan wada xusuusano durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku sheegeen xarunta xisbiga ee Muqdisho si la isula meel dhigo cidii bedeli lahayd madaxweynahaas la dilay. arrinta ayada ah oo afgaran waa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhexmaray raggii taasina waxay soo dedejisay dhashada kacaanka si loo badbaadiyo qorannimada iyo dawladnimada iyo iyaga u doodana si loo kala hago. wakhtigaa ay baarlamaanku shirayeen ee laga hadlayay sidii dawlad loo dhisi lahaa idinku hindisihiinu miyuu ka horreeyay mise uu ka dambeeyey? maya uu ka horreeyo qorshe ka horreeya waa jiraa. de maxaa weeye niyad xumada dadweynuhu mauna bilaaban wakhtigaa ay shirayeen iyagu ee wuxuu bilowday doorashadii ayuu la bilowday oo doorashada ka hor ayaa waxaa jirtay saluug fara badan oo loo qabay maamulada. marka fikraddu way taagneed laakiin waxyaabahan dambe way soo dedejiyeen. intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha ama marka taladii ugu horreysay ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan intee in leeg bay ka horreysay xilliga doorashada? waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta. waa Cismaan waxaad ka warrantaa haddaba markaa isugu timaadeen kulankiinii ugu horreeyey saraakiishiinii ciidamadu maxay waxyaabihii ugu horreeyay markaa aad ku taliseen maalan ay istidhaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada? sida la ogyahay haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga uu la wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa de waajibka ugu horreeya waxa weeye horta bal dastuurka in la joojiyo. maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday. marka durbada horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa. waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaanaa aan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dawladdu. waxaan u yeeranay nimankii agaasimeyaalka guud ahaa ama maareeyaalka ama shirkadaha madaxda u ahaa waxaanan siinay mandeed ama awood ay ku sii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jirin intii wasaarad laga dhisayo. marka nabadgelinta kacaanka iyo dhidibow aasidda nidaamkaa cusub oo dhashay ayaa wixii aan ku dhaqaaqnay ugu horreeyey. waxaad ka warrantaa Cismaan maadaama aad sidaad ii sheegtay aad dastuurkii laasheen baarlamaankiina aad kala dirteen doorashadii ka horreysana aad dhaliilayseen oo lahayd sida u dhacday ma wanaagsanayn
idinka la fahantiina wakhtigaa talada la wareegayseen ma idiin muuqatay doorashadii ceebahay doontaba ha lahaatee haddana dadku inay xor u hayeen iyagu ciday doonayaan inay doortaan laakiin idinku aad taa ka qaadeen markaa ma idiin muuqatay nooma muuqan maxaa yeele hadday noo muuqato dee maba samayneenba afgembiga waxaa noo muuqatay annagu dee xoog baan ku wala wareegnay meeshii laakiin dee in nidaamyadii markaa jiray dadka soo dhici jireen maanay ahayn mataqaanaa waxa la yidhaha qofku xorriyadiisa qofka uu kusoo dooranayay magac ahaan way ahayd waxa weeye waxyaabahan la yidhaha waad ogsan tahay adduunka waad la socotaa waxaan hadda ay yidhaahdeen dimuqraasiyada waxay ku timaad tartan xalaal ah oo caddaan ah oo la yaqaan oo qofku wuxuu sheegaya iyo meeshuu ka yimid iyo xataa meeshii uu kambaynka uu gelayay ama tartanka dacaayadii uu samaynaya lacagtii meeshuu ka keenay marka waxa weeye adduunka ama waa in wixii sidii dadkii samaystay oo reer galbeedku ay u samaysteen loogu dhaqmaa ama de waa inaan laga been sheegin marka annagu been ma aanaan sheegin waanan u bareerinay inaan dadka usoo dhicino ayaana annaga kolley ujeedadeenu ay ahayd laakiin dee iyagu mataqaanaa awooddii iyo dhaqaalihii dawladda ayaa lagu geli jiray anigu nin ahaan waxaan xoogga dalka soomaaliyeed wakiil uga ahaa xafiiskii hogaaminta doorashadii 69 say wax u dhacayeen iyo ciidamadana la weydiinaya meesha loo diray iyo cabashooyinka soo dhacayo intoo idilba waan akrinayo goobjoogna waan u ahaa taa waxaa dheer de dadka nafsadooda way caba jireen maansooyinkooda laga garanayaa heesahooda laga garanayaa gabayadii baa laga garanayaa waxa taas gabagabadii wada caddaynayo markii annagu aan ade caddaynay in ciidamadu la wareegeen meesha ummadda soomaali meel kasoo joogtay hambalyay noo soo wada dirtay waa soo banbaxeen waxa inaga hor yimid oo maxaad u samayseen la yidhaha baga mooye maanaan arag sidii haddaba loo soo dhoweeyey afgembigii ciidamadu wuxuu ahaa mid xoog leh sida heesaha gabayada iyo shucuurta dadweynuhuba ay muujisay hase yeeshee dowladihii ka horreeyay ee rayidkahaa raggii iyagu hogaaminayay sidee ayay u arkeen soo dhowayntaasi ciidamada dadweynuhu ay soo dhoweeyeen cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii soomaalida ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay bal sida uu arko soo dhowaynta xoogga leh ee la siiyey ciidamada wakhtigaasi waxaanu yidhi waxay u soo dhoweeyeen muxuu ahaa mid horta meel kasta oo inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusub baa dadka u sacbinayaan waxaana ku wacan waxaa weeye waxa cusub baa intii awal wixii horoo jiray aan wax ku haysanin oo ayagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusub baa yaa wixii hore wax ka fiican idiin keenaya oo iyagu weeye riyadaasi iyagu isu sheegayaan marka Soomaaliya kuwaas oo kale ka mid ahayd muxuu ahaa markii military qabsaday oo khudbad la akhriyay oo la yiri xukunkii hore oo idin laqay oo tuugada ahaa wax walba dhameeyay annaga ka fiican wax ka horeeyo military hadda ka horeeyo wara walbaanu idin ogeeyna ma jirinin waxa hore kale ay ballan qaadeen kanaanu sameynayna kaasaan sameynayna cadaalan keenayna sidii ana wal cadaalad jirin barwaaqaanu meel walba ka dhigayna iyo cagaar dadweynihii way u sacbinayeen marka la yaab ma lahayn maxaa jira meel kasta oo kale Asia iyo Africa iyo Middle East iyo meel alla meeshii inqilaab ka dhacay oo dhan haddaad la socotay saasa ka dhacaysay marka there is nothing muxuu ahaa oo la filan waayo dadweynuhu inay u sacbiyaan wixii isbedelay ma ay jirin sidii uu haddaba sheegay Cismaan Maxamed Jeelle markii ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka waxay u yeedheen rag tiradoodu ay ahayd ilaa kontomeeye oo ahaa mutacallimiintii markaasi la tuhmayey ama jagooyinka sare ka hayay xagga maamulka raggaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wakhtigaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddii qorshaynta
markii kacaanku uu qabsadayna waxa uu noqday wasiirkii ugu horreeyey qorshaynta ee dalka Soomaaliya iminkana waxa weeye wasiirka qorshaynta ee dalka la magac baxay Jamhuuriyadda Somaliland. haddaba aadan nuux ayaa siilaanyo oo iminka jooga magaalada London waxa uu weydiiyey u yeedhidii ciidamada qabsaday talada dalku ay u yeedheen isaga iyo raggii kaleba. runtii waxa weeye markii ay ciidamadu meesha qabsadeen waxa marka hore waxay isla galeen xeradii la odhan jiray Afisyoon oo ka mid ah xerooyinka ciidamada iyana may kala soocnayn markaa way isku wada dhex jireen ciidamada military saraakiil badan oo ka mid ah iyo kuwa police-ka intuba way ku jireen. anagu markaa ciidamada qabsaday mooyaane maan ogeyn exactly cidda qabsatay dadka qabsaday kuwa ay yihiin. isla markaa waxaa la soo ururshay dad badan oo rayid ah oo mutacalimiin iyo waxgarad loo arkayay siyaasadana aan toos ugu jirin oo la isugu keen qolka shirarka taliska booliiska ragga inta ay qolada ciidamadu shirarka aan kala go' lahayn ay u fadhiyeen oo marka dambe aan ogaanayno inay iskala hufayeen oo weli aan raggii noqonayay xubnaha golaha sare kacaanka markii dambe la bixi doona aan weli ayna iska xulina intaa ka badnaayeen. annagana raggaa aan sheegayaan ka midka ahaa la yidhi ka soo baltaliya siday idinla tahay in dalka loo maamulo. waxaan ka xusuusanahay talooyinkaygii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa in raggan ciidamada qabsaday wax kastaba ha ahaadeene ayan maamulka dawladda iyagu ayan qaban oo askaraar ayan qaban ay ku ekaadaan inay guddi samaystaan dusha ka ilaaliya maamul dawladeed oo rayid ah oo markii doono la bedeli karo ama cid laga bedeli karo iyaguna ayan hawsha toos faraha ula gelin. kaasi qodob aada muhiima buu ahaa. qodobka kale wuxuu ahaa in labada hay-adood midna ay toos maamulka dawladda tahay midna golaha sare ee ciidamada ka kooban uu yahay inaan marnaba inaan qof wada xukumin ay laba hay-adood oo kala madax bannaan oo mid walba shaqadeeda ay tahay. talooyinkeygii bay ka mid ahayd. runtii markii ugu horreysay beryaha ugu horreysay waliba intaan la faaniyo intii bilowgii qodob way ka qaateen oo may soo gelin dawladdii ugu horreeyey la sameeyey may soo gelin ciidamadii meesha qabsaday. waxa ahaa difaaca ayuunbaa ka ahaa muxuu ahay ciidamada inta kale civil bay ahayd waana beryihii aada moodasay in wax dhaqdhaqaaq badan iyo hawlo badan ay socdeen. qodobkasi aan la qaadan oo markii dambe dee waxaan dunida isku dhabqiyey ee kharibay uu ahaa oo aan taladii raggu berigaa soo jeeshay aan la yeelintii ahayd inaan qofu madaxooda noqon. maxamed siyaad baa labadiiba madax u noqday. markuu muddo ka bacdi joogayna maxaa laga kala shirayaa bal labadiiba dhexdaa la isu dhigay. marka way marka arrintu runtii ay dabaqday laakiin taa aada iyo aad baan u xusuustaa. ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa ay yihiin waxa ay kala miirmeen 1 bishii November sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood. su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegaystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan. cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamada xoryahooda ay ku laabanayaan. waxa uu ku jawaabay wallahi jeel hadalkaas waa balbalaaraya wuxuu u balbalaaraya sida hadda adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin. marka haddaan ku jawaabo saan halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya. waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda iyo dadka shicbi weynaha ah iyo askarta inay dad isku dada yihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalata. hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsadaa inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dhibkanagu is dhibkiisa yahay dantanada annagu ogeyn nooga shaqeynaya bas waa nin khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala ah meel ka buuxsanaya bas waa nin daacad ah xuquuqda jecel iyo hor u kaca ummadda kulligeedo idil annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa. marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya
يعني مثل حكم عسكري باتري أنا ما يهدي أنا واجي ورا عسكري أهان شفت دان اللي قلت المامين انتي كلا ياعية صودت كده اللي يرضى متعلمين تا أو رعاية دا أو ضل كتشوفي سو ما هي يعني هذا بس وحلا ميدا دوتشي دوا قرناية election قرمات سمين إنسان أياد إلى هذا تاسع الصعطان حقين الناس باللوجو فكراية وحنا سمين دونا مركي ضدكو وهذا بهير في عم بسمر عياية أي مسكحليسو أي سيدا أنو شيء أي ونقطة مد صومالي إخلاصا مركا ترى أي قوسان هيان ينكي حلان هيان لبدا بقى أي قانين مد وحقوية الله ويجي مصلحة ضوضة هو جامن هي إنه يهي mid maslaxadooda ka horjeeda inuusan noqonin barnaamijkii toddobaadkanina dhegaystayaal intaasi ayuu ku dhan yahay